السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan Somali Networking Group marka loo soo gaabiyana loo yaqaano SNG. Somali Networking Group ayaa waxay idin la diyaartay inay idinku soo gudbiso networking maadada networking aad ku baraysaan afkeena hooyo. dadka jecel inay bartaan maadada networking maanta cashirkeena ayaa wuxuu ahaan doonaa networking LAN. maadaama cashirka noogu dambeeyay aan soo qaadanay BC to BC maantana waxaan arki doonaa BC to switch to server. BC ayaa wuxuu ku xiran yahay switch serverkan wuxuu noogu xiran yahay asagana sidoo kale switch serverka aan maanta adeegsan doona wuxuu noo ahaan doonaa DHCP server loo yaqaano Dynamic Hosting Configuration Protocol. Dynamic Hosting wuxuu mataqaanaa ka caawinayaa in IP address automatically uu siiyo BC-yada maadaama BC-yada haddii ay badan yihiin boqol maalin walba ma siin kartid mataqaanaa BC walba inaad jirto IP address kaada. serverkan ayaa wuxuu ka caawinayaa every BC inuu siiyo automatically IP address switchka sidoo mataqaanaa u shaqeeyo waa sida tan BC-yada ayaa waxay ku xiran yihiin every port switchka sidiisaba waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mataqaanaa intelligent device waana wuxuu u shaqeeyaa data link layer 2 waxaanu mataqaanaa samaysaa table MAC address sida mataqaanaa each port walbana wuxuu leeyahay switchka has a fixed bandwidth waxaan u shaqeeyaa marka uu hore flooding ayuu sameeyaa destination to source maadaama uu marka ugu horeyso uu sanaysan table-ka wuxuuna table-ka u sameeysaa sida tan MAC address table port number uu mataqaanaa ku qoraa MAC address-kiisa source-ga destination-ka adhoona mataqaanaa wuxuu ugu dirayaa unicast ayuu adeegsanaa marka dambe ma adeegsan doono broadcast hadda aan usoo laabana anoo arkayna baraatikada si live anagoo adeegsanayno Cisco package trace kaasoo ka caawinaya inaad mataqaanaa aad u samayso practical waxaan soo qaadanaynaa switchka gudihiisa bal aan eegno asiga okay switchkan waxaad aragtaa wuxuu leeyahay 24 port inta waa 2 alif halkana waa 2 alif switch waxaa u baxsan kartaa magaca siin kartaa IP address ayaa siin kartaa waxaa siin kartaa hosting name IP address bal hosting ayaan siinaynaa magac ayaan u bixinaynaa IP address ma siinaynaa bal sida loo siin doono ay idin soo dhaweysay aad u aragtaan okay click to see enable configuration terminal ayaan tegaynaa hosting name Mahmoud okay waxaad ka aragtaan automatically inuu hosting name siiyo Mahmoud okay IP address ayaan siinaynaa interface aan leedahay VLAN 1 ayaa adeegsanaysaa mataqaanaa wuxuu u shaqeeyaa VLAN 1 adaa mataqaanaa VLAN 1 automatically ilaa VLAN 2 VLAN 3 waa inta u baxsan karto IP address 192.168.0.30 ayaan siinaynaa subnet mask 255.255.255.0 waa glass waxaan isticmaalayna waa glass C automatically wuu qaat okay enter haddaa rabto inaad save garayso WR ayaad mataqaanaa aan leedahay automatically wuxuu kugu save garaynayaa haddaba aan ka soo gudubno intaas oo ka gudubno switchka waa kan waxaan keensanaynaa BC servers BC to afar BC ayaan iska soo qaadanaa nagu filan waxaan soo qaadanaa serverka kaas oo adeegsan doona DHCP serverka waa kana waxaan iska soo qaadanaynaa cableka aan maanta isticmaali doonaa ayaa wuxuu ahaan doonaa street cable maxaa yeelay waxaan ku wada xiri doonaa switchka device-yada markay kala gaar ee mataqaanaa isku mid ahayn waxaa la isticmaalaa street cable markay isku mid ka yihiin waxaa la isticmaalaa cross cable maadaama sharci cashirka ugu dambeeyay aan soo qaadanayna laba BC waxaan isticmaalnay cross cable okay cableka ayaan soo qaadanaynaa waxaan kasoo xiranaa internet faceka uu serverka leeyahay switchkan waan ku xiranaa switchkan wuxuu leeyahay 24 port okay okay serverka ayaan tegaynaa kood hore IP address ayaan isaga siinaynaa 192.168.0.1 okay waxaan tegaynaa waxaan dooranaynaa inuu yahay DHCP server
waxaad ka dooranaysaa halkan DHCP server أنا إذن سو دويو magaca ayaa u bixinaysaa DHCP ayaan leenahay annaga hadda router ma isticmaalo DNC ma isticmaalino IP address kan soo siin automatical xagga ayuu inta kusoo qaadanaa 192.168 halkan waa meesha ku bilaabo waxaan ka dhigaynaa 20 inta number ee maximum numberada isticmaalayo waa intaas number home numbers waa millions number waxaan ka soo qaadanaynaa inaan isticmaalino 30 numbers okay aad ayaan leenahay ونوصل DHCP magaca u soo bixinay meesha ka bilaabanaya ilaa iyo meesha ku dhamaanayo taydi mataqaana maximum numbers ka isticmaaleyno number 1 automatically ilaa number 20 save ayaa leedahay automatically wuu save gareynaya haddaba aan u soo laabanno package okay PC-yada ay waxay rabaan mataqaana inaan ka dhigno maadaama ay yihiin static dynamic inaan doorano configuration sida maadaama aan static dooranayna maantana DHCP ayaan dooranayna waxay ka bacdi number waxa imaanaya IP address automatically ayuu u qaadanaya waa aragtaan aan filaya ay idin soo dhaweeyeen numberdan waxa anaga siinamaha waxa si toos automatically u siiyo DHCP server waa iska xiriirna waxaan tegaynaa PC kale desktop IP configure marka si toos ah idinku DHCP server leh halkan waa aragtaan automatically u imaanaya IP address 192.168 okay dhammaantood waxaan ka wada dhigaynaa dynamic automatical IP address ka tuu imaanaya hore ayuu siiyey DHCP server dynamic server okay waxaan eegaynaa waxaan package ka soo direynaa serverka waxaan u direynaa PC-gaas waxaan leenahay wuu wada diray dhammaantood u wada diray okay kuwan mataqaanaa destinationkooda maaha automatically waa iska kansaleen wuxuu kusoo celiyay MAC addresska wuxuu ku qoranayaa MAC tablekiisa DHCP serverka ayuu u dirayaa okay هذا ركتا automatically حقه هذايا sidoo kale haddaba waxaan ka soo direynaa mataqaanaa PC-ga to serverka ayaan u soo direynaa wuxuu imaanayaa mataqaanaa switchka si automatically wuxuu ugu dirayaa serverka okay serverka wuxuu soo celiyaa mataqaanaa package wuxuu automatically ugu dirayaa PC-ga marka hore wuxuu adeegsanaya inuu u wada diro markana wuxuu u dirayaa destinationka kaliya sida hadda ka aragtaa line guduudan oo mataqaanaa meesha maraya okay PC to PC na waa u diri kartaa waxaa ka arkaysaa halkaas okay PC-gan inaan kasoo dirno iyadoo mataqaanaa qoraal sida aad u aragtaas PC-gan ayaan kasoo diraa PC-gan ayaan u dirayaa automatically tagayaa switchka markuu imaado si automatically wuxuu ugu dirayaa PC uma wada diraya dhammaantood wuxuu kusoo celinayaa mataqaanaa switchkana si automatically wuxuu ugu soo dirayaa PC wada shaqeynta ka wada dhexeyso waa intaas broadcasting markuu sameynayana waa sida tan package-yada mataqaanaa MAC address ahaan oo mataqaanaa wada qoranaya source-da iyo destination-da MAC address-kooda switchka wuu wada dirayaa dhammaantood haddaba cashirkeena maanta intaas ayuu noogu egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh